بسم الله الرحمن الرحيم. نقول مقعد وياه مصطفى محمد حسن وحنا الكن كان بارين يا حركة اللي قولك عاي دليرتي كهاد ليس أفرت فيبر ولي وحن علينا يا دليرتها مي سمين وحمطهرة وحمحي هيدي رفشت كعينا يا سلمية وهادلين إنا كهادلان حق بولي وحالك ما أنت يسوق يسوي عن هذا سور استأجر ميديا تاني هو كم بتبانها عيب مع قف هطور شيء ما نتابعه دي أنا بكم ده وحيدت كاسي ما أنت أسلم وما لين هذا اللود بالدقو ما لين تأوفه وما لين لحصة الدين مي وما لين لحصة maalintaasina maalmahan bay ka mid tahay waxa la yiri inaad saamajiidiyo saqartirasho kala daa taatiraada sacabaan tumaya dadkuna inay durmaantumin macquul ma aha Soomaaliland wixii u saxsan ma waxaan oran lahaa dhalinyartaasi in loo soo celiyo xorriyadoodii hadii la seexid xidho de wixii ma waxa la xidhi intii aabayaashooda laayo oo dhan ayaa la xidhi maanta waa dadka waaweyn ee wada qaangaari ma kuwaas oo dhan baa la guri wixii in wax la kiciyo ma aha aan waxaan oran lahaa oo ku talin lahaa in dadka la iska sii daayo ma aha in rabshadana la abuuro aan rabshada waxa abuuro sacida xariga ka dambaysa abuuraysa waxaan leeyahay kulley maanta waxaynu ku jirnaa xaalad adag baynu maranaa wixii intii meel laga soo wada jeesan lahaa ee maanta gacmaha la isqabsan lahaa ee dhalinyarta yaryar ha hadlaan shucuurtooda fikirkooda iyo maalintooda ha xusaan laakiin arqalad ma ismay intii meel loo soo wada jeesan lahaa in iyaga lagu soo jeesto waa khalad wixii in dadku ay sii kala baxaan oo dawladii iyo dadkii ay isqabtaan maaha waxaan kula talin lahaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wasiirka arrimaha gudaha in dadka la sii daayo hadii loo aqli celiyo warnin waliba cidii aabihi dishay wuu garanaya wixii hadii aw xuso ceeb ma hadaad u aragtaan gaf de wixii intaas oo umada kacaysa marka waxaan oran lahaa dadka in wixii maalintooda qof waliba loo daayay hadii kale maalinta SLM iyo maalinta ufaba la joojo 4 February maalinta la joojinay